wuxuu midi geliyey kabtiisa, mid kalena gacanta ayuu ku hayay. wuxuu mididii ku muday barafka, lugtiisana ku xajistay, wuxuuna bilaabay inuu si tartiib ah u fuulo. balse mididii daciifka ahayd way jebisay, markaas buu hoos u dhacay. nasiib wanaag, baalashkii ayaa ku xirmay laan qalalan, mar kale noloshiisa badbaadisay. hase yeeshee laantii ayaa bilaabatay inay dilaacdo. xilligaas khatarta ah, ninkii si degdeg ah ayuu isu rogay, wuxuuna midi kale ku jaray xadhiggii baalashka. intaan laantii si buuxda u jabin, wuu iska sii daayey baalashkii. markuu arkay baalashkii oo hoos u dhacaya, dhidid qabow baa ka soo baxay. markii uu rajo beelay, wuxuu arkay orgi buurta korayaal. wuxuu hal gacanta ka sii daayey, wuxuuna jidhkiisa hore ugu wareejiyey. hadda jidhkiisii oo dhan wuu hawada ka laalaaday. si tartiib ah ayuu 4 adin ugu fuulay, ilaa uu gaaray meel yar oo buurta ka bannaan. balse intaanu neefsan, dhagaxii hoostiisa yaalay baa dumay. wuxuu ku sigtay inuu hoos u dhaco. wuxuu 2 lugoodba xoog ugu riixay, isagoo sidii orgi buurta ku fuulaya. ugu dambayn wuxuu qabsaday geeska buurta. markuu rabay inuu kor u baxo, orgigii ayaa hortiisa ka soo baxay. ka hor intuusan falcelin, orgigii baa madaxiisa ku dhuftay geesihiisa. dhuftadii xooggeeda wuxuu ku sigtay inuu dhaco, balse wuu isu adkeeyey. orgigii markuu mar labaad ku soo weeraray, ninkii wuu qabtay geesaha orgiga, wuxuuna isticmaalay xooggiisa si uu dhulka ugu soo degto tartiib tartiib. ugu dambayn, isagoo xoogga orgiga adeegsanaya, ninkii si mucjiso ah ayuu u badbaaday.